السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I hope إنا عافمات قبتين أمانتين أو فرحسنتين ووحولي بقى أي أوكا إليهين إلهي إذنكي مركز إسكسونا قد ونكسن another Saturday يعني هلكا سو فريستي الحمد لله. الموقال كان ما أنت وحكو سابسين هاي هورت أنت الموقال كأقود قالين جامعة محاكا غوري هاد سلاذة كقف جامعة بناك كجو أهان جامعة قده هذا يعني محاكا داعد سلاذة هاي محاد noo yani aad u malaysaa ama aad ka filan kartaa dadka jaamacada dhigta ka waalid ahaan markii la yiraahdo waalidkeen markii ama dadka kale dadyo kale waalidiinta adi ama ha noqoto waalidkaagu ama waalidiinta kaleba markii la dhaho hebel ama heblaayo jaamacaday dhigataa ama jaamacaday ka timi ama jaamacaday mataqaanaa ay ku maqan tahay muxuu ka filan karaa qaab noocuus u arki karaa ayaa la isdhihi karaa yani طبعا أرضية يو معاني جامعات وأجهي already واحد جودها جامعات كجرا أما حقيقة جامعات أما هنقدان واحد بوزيتيفة أما هنقدان واحد نيجاتيفة لكن تلك جامعات كبنانكا محيسة هاي واحد لولا تليو أرضية كعسوب جامعات أما ربع إنه هذا بلابه طبعا واحد شيء وأنت جامعات سو قلين يو إلى يو سمستر هذا سمستر 4 وحي كبدن طبعا la talintooda dadka kale ka sugeynaa oo gudbay leveliskaas oo ka gudbay leveliskaas ama jaamacadda dhameeyay kulay taladooda ayaga uga fadhina laakiin intii qofku wuxuu ka warrami karaa Soomaha wixii uu soo maray uu soo arkay uu cashar ka bixin karaa marka maxay tahay marka talooyinku ugu mudan in la siin karo ka qof raba inuu jaamacadda hadda kadib galo oo kale ama semester 1 semester 2 waqtiyada la yaqaano wareerka ku sugan maxay u mudan tahay ama ay ku haboon tahay in tala ahaan loo siiyo lagula taliyo iyo wax laga celiyo ku soo dhawaad muuqaalkeena maanta okay jaamacad marka la dhaho dabcan magaca jaamacad iyo goobaha kale waxbarasho horta farqi baa u dhaxeeya yani sida dadku u arkaan marka loo fiiriyo iyo wax laga filan karo qofka jaamacada dhigta dhab ahaanna wax badan ay kala duwan yihiin yani waa wax kala fog waxa ay tahay ama ay yihiin ardada jaamacadaha dhigto iyo waxa ay dadka ka filan karaan marka lagu weydiiyo oo kale ku haminayso oo kale arday jaamacad raba inuu soo galo waxa laga yaabaa inaad u malayso in mar haddii aad jaamacad bilowdo ama aad jaamacad dhameysaba ay noqonayso yani fursadaadii nololeed oo ugu wanaagsan oo kale laga yaabay qofku inuu isdhaho waxaan ina qabsado waxa iiga xiran ina jaamacad dhigto oo kale inuu isdhaho yani qofku inuu ka fakaro in jaamacadda lagu bari doono cilmi ka duwan waxyaabihii uu soo bartay ama waxyaabaha uu filan karo wax ka duwan ama fursadda ugu muhiimsan oo noloshiisa oo dhan ay bedeli karto inuu arko inta la gaarin marka talooyinkii waxyaabahaas waxaa jiro waxyaabo yani ani fikradeyda ku aadan oo aan jeclaysto inaan kula taliyo mataqaanaa ardada rabta inay jaamacadaha gasho sida la ogyahay jaamacadda way ka duwan tahay waxbarashadii aad soo marto markii aad dugsi sare dugsi dhexe aad soo dhamayso oo kale way ka duwan tahay marka hore waxaa lagu dhahaaba intaan jaamacadda soo galin ka hor marka ay bilaabanayso jaamacadda waxaa jiro erayo ay jeediyaan dadka guddiga jaamacadaha iyo markaad jaamacadda kalaaska maalinta koowaad aad soo xadirto oo kale in lagu dhaho oo kale meeshaan way ka duwan tahay yani waxbarashadii iskuulka cid ku qasbi mayso cid yani ma ku amrayso xilliga rabtida soo geli kartaa horta fikradahaas waa jeclaan lahaa in la duwo waxoogaa saas laga bedelo taasoo keenaysa inuu qofkii uu aad u gaabiyo oo isdhaho cid ku kontroolaysa male cid saan ku dhahaysa male oo laga yaabo ardada qaar inay kaliya u soo xaadiraan attendance bas inay imaadaan jaamacad waa la yaqaanayo waxa kaliya oo focus kala saaro waxay tahay attendance waxa laga yaabaa qofka 10 inuu la socon oo attendance bas uu imaado oo waqtigii examkana ay noqoto inuu madax xanuun meeshii ka qaado oo ay noqoto in haddii uu wixii raadiyo because of mawna la soconin horta taas in xoogaa la bedelo way wanaagsanaan lahayd iyo in macallimiinta ay ku dhahaan taas xaqiiqo waaye oo dhabta ah ay ku dhahaan macalinka boqolkiiba 20 oo kale ama 25 ayaa saaran inta kale ardayga saaran yihiin waana dhab ahaan waxa oo mataqaanaa aad uga tagi doontid jaamacadda
jaamacadda ardaygu isagaa wax isbaro fahmaysaa waa lagu iftiimiyaa yani jaamacadda ama macallimiinta furihii aad meesha ku mari lahayd bay ku siiyaan waa adiga qofka rabo in uu soo raadiyo furahaasi meeshuu ku furi lahaa oona inta uu isticmaalo furahaas uu ku maro meesha la rabo waa adiga caqabadna xoogaa way kugu noqon kartaayo ardayga muddada hore sida anigaba iigu dhacday oo kale semesterka koowaad ama labaad in badan oo badan yani dhowr jeer oo kala duwan ayaad mataqaanaa ku hamin doontaa inaad joojiso jaamacadda dhabahaan anigoo keliya waxaa celiyaa dhihi karaa ma jecli badanaa wax aa bilaabay hawl markaa bilaabo inaad qabyo uga tago ma jecli taas oo kale laga yaaba inay celisoy ma ahane 2 jeer may 3 jeer oo kala duwan ayaa ku fikiray inaan joojiyo jaamacadda waana anigoo in badan ka fiirsaday oo jaamacadda aan hore ka gelin ayaa taas u dhacday marka qofkii jaamacad uu isla markii uu dugsi sare saa u dhameeyo high school markuu ka baxo uu hore ka galo uga sii daran tahay isdhihi karaa horta waxyaabaha la isdhihi karo ama ahaan ay isdhihi karo waxay tahay oo aan qofku ku dhihi karo intaan talooyinka kale la gaarin talooyinka aan kusoo jeedin doono waxaa kugula talinaa koley waa gaari doonaa laakiin inaad nood ka qaadato marka waxaa kula taliyaaba qofka ani ahaan ay isdhihi karaa inuu qofka ardayga markuu high school u dhameeyo inuuna hore jaamacad ka bilaabin oo xoogaha uu horta hal mana fiicno oo qofka inuuna siina iska galo oo muddadan uu dhaho break baan qaadana horta ma wanaagsana laakiin bilooyin yar inaad ka hakato jaamacadda aan hore ka gelin inaad fiirsasho badan horta aan samayso iyo inaad xoogaha isku filnaansho yar ah aad raadiso isku filnaansho kalaba ma ahaba in inta yar tahay jaamacaddaadii ku baxdo iyo waxyaabaha dheeraadka yaryarka aa u baahan tahay inaad iska maareyn karto oo noloshaadii ayna u soconin sidii mataqaanaa dugsiga sare oo kale aa kusoo socotay oo sida dugsiga usoo dhigan jirtay markii hore lagu geeyey iskuul ay noqotay in waalidkii ay bixiyaan aad iskuulkii soo dhammaysay waxaa kugula talin lahaa in stiil aanad sidaaday ku wadin oo sidii le aad jaamacad ku bilowdo adigoo shakhsiyaddii ah sidii ah oo wixii yarta aad u baahdo aad waalidka weydiiso aad iska imaato horta taas ma kugula talinayay midda xigta arday dadka qaar oo waxaa jiraan baartaan jaamacadda ka dhigto waqtiyada kalena iska jiifa koleyba taas iyadana talo wanaagsan maaha laakiin inta badan ardada taasay sameeyaan qofka khamiis iyo jimco uu jaamacad tagaa labadaas maalina madaxa laga soo galaa dadna wiig oo dhan uu iska jiifaa telefonkiisu iska istaago iska joogaa wax uu qabta male koley horta taas kuma taliya ani ahaan waxaa wanaagsan qofka in waqtigiisa maalintiisa uu ogaado horta meeshay ku dhammaato haddiiba ay dhacdo in waalidka ay diyaar u yihiin inay waxbarashadii kaa bixiyaan adigana aad rabtid inaad mataqaanaa aad jaamacaddii dhammayso waxaa wanaagsan full time haddii yani full timeka waqtiga kale isbuuc oo dhan haddaanad wax qaban in khamiis iyo jimco ay ku ahaato maalintaadii fasaxa aad iska joogto haddaa rabtid guriga laakiin waqtiga kale isbuuca intiisa kale aad waxbarashadaadii aado maahano full mataqaanaa part time rabtaa part time haddaa rabtid waxaan kugula talin lahaa inaad iska shaqo raadsato yani wax un xirfad aad ku shaqayso aad raadiso amaba shaqo yaroo ku meel gaar ah xitaa hadday shaqo weyn noqoto shaqo waa inaad hadaa meel mar aad qof u shaqaynaysid waa inay ku ahaato oo niyadaada ay ku jirto inay ku meel gaar tahay marka shaqo yaroo iska ku meel gaar ah oo aad ku maaraysid inta yartaa waxyaabaha yarka u baahan tahay wixii aad jaamacadda uga baahan tahay sidiina aad part time khamiistii jimcihii aad u dhigato jaamacadda markaas waxaad dareemaysaa qof mas-uul oo mataqaanaa waqtigiisii iyo wixiisi ay u maaraysan yihiin ayaa dareentaa okay ardada markaa dadka ardayda jaamacadda dhigto ma yihiin sida dadka ay u arkaan markii la dhaho hebel ama heblaayo jaamacaday dhigataa jaamacaday ka imaatay jaamacaday ku maqan tahay waxa ay dadka marka hore u sabiran karaan qaabka ay u arki karaan dhab ahaan ma yihiin ardada wallaahi su-aashaas jawaabteedii si xaqiiqa oo waadax ah oon shaki lahayn waxay noqonaysaa may ma aha dadka jaamacadda dhigto waa dad gebi ahaanba ka duwan sida loo arko jaamacadda dadka dhigto dadku waxay u arki karaan qof mataqaanaa ay aqooni badani ay ku jirto qof ay wax badan dadka kale dadyowga kale ama aanan jaamacad dhiganin ama hadda ay dhigto iskuulka
inay si aada ugu duwan yihiin oo dad ka horumarsan oo ka ay yihiin mana ahan يعني dadka jaamacad markii ani ahaan xitaa waxa u haystay jaamacadda dadka joogo inay yihiin dad ilaa heer sare yani ay laga filan karo yani positionka ay aad ku arki doontid dhab ahaan meel ka duwan inay joogaan waa dad xitaa sometimes waxyaabihii yaryaraay oo laisku soo tarbiyeyn jiray xaafadda markii yani yaraanteena lagu soo tarbiyey xitaa lumiyey ma aha inaan xumaynayo ma aha dabcan aniga waa ka mid ahay oo jaamacadda dhigtaa laakiin wax badana kala duwanaansho badan waad arkaysaa oo wax yani aadan filanaynin oo kale sida dad oonan xoogaha mataqaanaa ayna ixtiraamin goobta lagu tukado oo kale dad xoogaha mataqaanaa ay akhlaaqiyaad ahaan yani tusaale waxaa jiro qodob aan dhahay maalin hore muuqaalkaygii u dambeeyey aan ku dhahay muuqaalkaas xigo ayaan ku faahfaahin doonaa dabcan maan ilaabin inaan ka hadlo waxaa ilaabana ma ahana waa wax mar walba iyo inta kale xitaa ma aha waa khamiis iyo jimco gaar ahaan waqtiga aan u baahdo inaan mataqaanaa goobta salaada aado ay iga dhex guuxaan su-aalahaas ama dhahaa ma fardi baxdaayo ma ina maxmeday ma qaylisa isdho wax kalena ma aha tusaale ahaan waxaa jirto soo maaha meel lagu tukado meel goob salaad meel walba aslanba oo dad muslimiin ama mujtamac muslima isugu yimaadaan waxaa jirto goob salaadeed oo loo diyaariyey meeshaas haday meel waxbarasho tahay xitaa cisbitaalada markaad tagtid waxaa arkaya meel loo diyaariyey in lagu salaado qayb ragga iyo qayb dumarka ayaa jiro marka waxaa jirto oo kale markaan kuleeyahay way ka duwan yihiin dhab ahaan sida la filaayo way ka duwan yihiin markaan kuleeyahay waxaa arkaya goobtii salaada ayadoo dadkii intooda badan 5 qof 6 qof 7 qof ama iska dheeba 2 qof ama 1 qof ay tukanayaan ay meeshii in music lagu daaro oo kale ardadii qaar kamid ah ama gabdhihii qaar anigu ma sheegi kari wiilasha laakiin ma ka filanayay sida xaqiiqada ma ka filanayay because of wiilasha waa dad yaqaano jameecada ama goobaha cibaadada waxay tahay oo yani waa dad maalin alla keeno haddii 5 salaadood aanay ku tukan 2 ilaa 3 oo kale laga yaabo inay masaajid kusoo tukadaan marka way og yihiin qiimaha ay leedahay goobta cibaadada sax dadkan ma ku baraarugsanaba meeshiiba uma arkaan inay tahay meel cibaado waxaana kor ugu qoran qolka salaada aan ku qoran waxaa arkay aslanna meesha marba hadday tahay meel lagu cibaadaysto waa mixraab soomaa mixraab waxaa laga keenay min alxarb yani alxarb aa laga keenay waa goob qofka uu kula dagaaltamo ama uu dagaal kula jiro shaydaanka qofkan markuu salaada ku jiro hadba shaydaan baa soo weerara isagan gaashaan u haayaayo difaacu kaga jiraa marba uu soo weeraraa isku daya inuu yaro waswaasiyo difaacu kaga jiraa bal ka waran meeshii aad shaydaan iska cajinaysid adiga in salaad ku jiro oo isku dayayo inuu marba qalbiga dhinaca kale la aado maskaxdaada wax uu ku soo rido wixii hadda loo socdo ay ku fikirto aad soo celcelinaysid oo isku dayaysid inaad bal xaadir ka dhigto qalbigaaga niyadaada soo xaadiriso si aad ula socoto waxa aad akhrinaysid iyo waxa aad wadid haddii music lagu daaro ka waran soo cajiib ma qof xitaa waxyaabaha qaar waa masti qofku weyn inuu fahmo moogti waa qasab inuu fahmay ku tahay qofkan wuxuu baranayaa qof jaamacad dhiganaya arday jaamacad dhigto ka arday jaamacad dhigta ahaan waxaa laga filanayaa yani qof ilaa xad nidaamsan markaas soo koobno wixii dhan isku soo barno cilmiga waxa aad baranayso sida caadiga qofku wuxuu u baranayo ama ha noqdaan maadi ama ha noqdaan diini waxaa la rabaa inay ahaadaan wax isaga celiya wax isaga ka muuqda wax isaga ka sooci karo dadka jahliga ku sugan ama dadka aan wax soo baranin iyo isaga waxaa la rabaa wax kala sooci karo oo difference inay jiraan ayaa la rabaa waxa aad baranaysid waa inay ku celiyaan at least waa inay ku ceshan karaan oo aad xishoon kartid oo aad isdhihi kartid waxyaabaha qaar yani ma lagaa filanayo oo kale aad isdhihi kartid ama aanan lagaa filanaynin aslan hadduu ku celin waayo cilmigaagu waa inuu ku celiyaa garaadkaaga iyo yani qof weynimadaada waa inay ku celisaa way ku celin waayeen waa inaad soo xasuusataa tarbiyadii yaraantaa hooyada iyo ay kusoo siiyeen iyo aabaha waa inaad soo xasuusataa sax ma jirto waalid ama tusaalehaan hooyo gabadheedii waan ognahay sax adoo meel xitaa weelkii aad ku cuntayso adoo yar waaye adoo yar meesha markaa ugu tagto maxaa lagu dhihi jira
lagu dhihi jiray haye maasha allah ka tagay bax lagu dhihi jiray ama saasa lagu soo fiirin jiray indhaha lagala hadli jiray waad soo laaban jirtay waad qaadi jirtay ka waran meeshii lagu tukanayay goobtii mixraabkii salaadii loogu talagalay la nadaamiyey meeshii shumac baa la fidiyey waa la nadaamiyey inanta nadaafadu way timaadaa subaxday way nadiifisaa waa la imaadaa take away la soo qaataa oo kale waa lagu cunteeyaa cabitaanadii take wixii dhan xitaa ugu yaraan wixii aad cabitaankii ka cabtay iyo wixii aad cunadii ka dhamaysay xitaa bacdooda inta ku celisid aadan isku xirin ka waran oo meeshii aad sidoo uga tagto meeshiina waa goobtii salaada miyay tahay wax lagaa filanayo ka arday jaamacad ahaan ma lagaa filanaya waa may ma lagaa filanayo waxaa lagu arkayaa yani qof caadi ahaanba sida dhabta ahba ka fog iskuuleyda ma lagu arkayo iskuuley iyo qof jaamacad digto isku sima loo arko laakiin sometimes waxaa isdhihi kartaa waagii iskuulka laga sii dib maraaba markaasaa blis cadaadin jiray oo laga cabsan jiray macallimiinta iyo laga cabsan jiray meeshaan waxaa lagu dhahaba marka koowaad cod ku canaananayso iyo cod ku qabanayso ma jirto waxaa marka hore lagu soo dhahaba oo ma jirto qof rabo meeshuu ku tukanayo inay isdhexdaadsanaato inay si kale usoo qarmuunto inay meel uu ka yaqsoonayo inuu ku tukado qofku ma xiisaynayo ma ku qancayo ma ku dagaysa laabtiisa meesha waxaa loogu talagalay goob cibaado markay tahay in la ixtiraamo aslan marka midaas oo kale waa su-aasha sababta aa u dhihi karo maya ma noqonayso ardayga jaamacadeed wax dadka kale ka filanayaan ma ahan sababta u dhahayo taasaa kooga ah waxaa arkay meesha oo weysada loogu talagalay goobta loogu talagalay in lagu weyso qaato waa la yaqaanaa mixraab aan dhahe waxaa qolateen xitaa waa loo yaqaanaa goobta weyse loo diyaariyay ama masjid ha ku taalo ama meel kale ha ku taalo iyadana oo weysada loo diyaariyey tuubada markay tahay meeshaas waxaa loogu talagalay ama loo sameeyaa meel yaroo loogu talagalay in lagu fariisto ama adi kursi gaaban oo kale laakiin mutuleel ka samaysan oo darjiina meesha ku samaysan meeshaas waxaa loogu talagalay sida xitaa canuga 3 jirka uu fahmayo waxaa loogu talagalay in lagu fariisto ka waran haddii lagu istaago oo kabihii qofkii uu ku dul istaago dadna uu weysadii saas uu ku dhamaysto meeshii dhan ay dhooqo isku bedesho meeshii markaad tagtid aad ugu talgashid inaad fariisatid ba meel la fariisan kara maaha waxaad ku qasban tahay inaad foorarto ama sidooda oo kale aadna aad samayso aad istaagto ku dul istaagto dabcan taasna wax ma aha mataqaanaa na lagu soo tarbiyey ma markaas oo koobo aa dhaho qofka caqliga leh waxyaabo waxaa jiro una u baahnayn xitaa in loo sheego in la xasuusiyo una u baahnayn wayba dhacdaba ka soo qaado tii muusiga aan ka wadnay muusiga daartay hadduu ku celin waayey caqligaagu ku celin waayey wixii aad baranaysay ku celin weyday tarbiyadii aad waalidkaa kusoo siiyeen aad soo xasuusan weyday qofaa xasuusinayo maalan qofaa dhahayo abaayo waa la tukanayaa gaabso xoogaa la dhaha ma maqlaayo miya micnaa ma soo xasuusanayo in meeshan waxaa la rabay inaad ka cudur daarato aad dhahdo waa ilaahay ma la tukanayo waxay la dhuumataa la rabay iswii daarnaane waxa ku qabanaysa ma hadashaa salaadan ku jirta markii sometimes aad isdhahdaaba meesha salaad markii lagu jiro goobta weysada qofka joogo oo inta meeshaasi intuu ku dul istaagay uu biyaha qubayo waxaa aayadaad inta badan ku jirto in allaha laa yuxibu almusrifiin yani in la tarso maxaan dhahaa in la tasrufo oo wax la fasahaadiyo diinta ma aamina yani ma jeclo ma kugu taageerayso weysada waxaa u malaynaa makruuhaat alwuduu inay ka mid tahay aan aada ugu malaynaa in weysada biyaha zaa'id loo daadiyo makruuhaadkay ka mid tahay waxyaabaha yani aan la jeclaysanaynin oo yani weysada lagu dhex sameeyay ka mid tahay waxaa ku qabanaysa ma hadashaa markii oo caruur badan ay guriga joogto oo aad maqasho in tubada la furay masti waa soo hadashaa mogtahay waryaa tubada xiraa waryaa adoo salaad ku jiro oo qof weyn oo adig kula eg ilaaha weyne adig kula eg ama laga yaabo hal sano inuu kaa yar yahay waa ugu yaraan dad 19 jir 20 jiro 20 jiro waa waxaa ku qabanayso waryaa tubada xir inaad dhahay ma ku baraarugsano waxaa jiro xadiis oo nabiga sallallahu alayhi wasallam mar uu dhahayo Mucaawiya inuu ahaa jeclahay mise Sacad uu ahaa si fiican ma hubi saxaabi u ahaa isagoo weysasanayo uu arkay oo zayd weysa qaadayo uu dhahay biyahan aqobaysa maxaa waay yani biyaha maxasas uu daadinaysa markaas uu weydiiyay yaa rasuulullaahi biyaha yani weysada xitaa tasarruf ma gashaayo yani fasaad ma gashaa haa uu yiri xitaa hadii webi qulqulayo hadaa ag joogtid xitaa
يعني ما la ogolo inaad zaa'idkaas ah xad dhaafka aad u isticmaasho weysada ma la ogolo qofna wuxuu isdhahaa oo laga yaabaa inuu isdhaho ani jaamacad lacag ku dhiganayo jaamacadda bixinaysa anima bixinayo inuu ku xisaabtamayo laga yaabaa una u fikraynin ba yani fasaada ay ku dhici karto ama yani ay gaab u gali karo weysadiisa ajarkeeda inuu ku fikirina laga yaabaa qofka sidaa sheegnayba markuu qof weyn yahay waxyaabaha qaar ma laga filanayo ma ula sii jirtaba markuu uu yahay qof wax baranayo ama already wax bartay ma laga filanayo waxyaabaha qaar waxa laga filanaa qof mataqaana ixtiraam leh wax badani ka fikiri karo aragtidiisa ay ka duwan tahay aragtida qofka aan wax baranin ay ka duwan tahay la rabaa waxaan xasuustaa yaraantaydii markaan yaryareen hooyaday khayr allah siiyo way shaqayn jirtay may way shaqaysaa hadda way shaqaysaa ilaahay abaalkeeda janaha ka dhigo oo mataqaana cimri dheer oo caafimaad iyo cibaado leh ha siiyo way shaqayn jirtay hooyaday galbihii markay imaanayso dadka kulli qof walba hooyadii shaqaynayso ila dareemi karaa tan ila dareemi karaa ayadoo wax noo wadin waa ayadoo wax noo keenin ma noo imaan jirin galbihii markay imaanayso waxbay soo gadaa waxay rabaan ha ahaadaan waa sugnaa marka anaga galbihii hooyo markay timaado waa ognahay in already ay boorsadeeda ama bacdeeda wixii ay wadato inay wax noogu jiraan anaga waa ognay marka waqti salaaday kusoo hagaagtaa oo maqribadii ay dhahdaa waa tukanaa maqribaa soo dhawey ukaadiyo maqribka aan iska bixiyo intay maqribka tukanayso anaga hareeraheeda joognaa waa suganaa waxaa u dhaxaynaa 5 jir 7 jir ilaa 2 jir ay isugu jirnaa aa u dhaxaynaa meesha ku sheekaysanaa marka meesha ku sheekaysanaa waa ku buubuuqnaa sometimes laga yaabaa marka wax ay ogeed ay taqaan ama wax iyada dhacdo aan mar iskula kulanay ama wax iyada ka qoslisiiyay hadda ka hor oo kale inay sheekada nala gasho markay dareento inaan xoogaa aan qashqashaadi doono ama aan waswaasin doono ay ama maxaan ku iraahdaa ay dareento inay qosli doonto oo kale ay xoogaa yar waxay kor u qaadi jirtay waxay ku dhawaaqayso qowlka ay dhahayso tusaale ahaan markay ay dhihi rabto samica allahu liman xamida oo kale ama allahu akbar in wax yar anaga markii hore ma maqlaynin mogtahay inayna maqashiiso ayadoona noogu baaqayso inaan joojino wax aan wadno anagana already waa fahmi jirnay markay xoogaa ay la soo jeerta ama maqalnaba samica allahu liman xamida inay dhahdo khalaas waxaa isdhihi jirnay waad waswaasin rabtaanay gaabsada waa is aaminsan jirnay waan qashqashaadi doonaa aamuso saasa ku aamusaynaa saasa ku sugaynaa maxaa la rabay marka qofka weyn meeshii ilmahaasi yari uu ka fahmay baaqaas qofka weyn waxay ahayd inuu samayninba marka hore inuuna gelinba qaladkii ilmaha yar markuu galay uu baaq yar uu ku fahmay dee qofka weyn waxaa laga filan karaa inuuna gelin marka muuqaalkan horta kilibkan yartaa muuqaalka o dhan maahane kilibkan yartaa waa jeclaan lahay gabar walba oo jaamacad dhigato inuu gaaro ilaahayna ka cabsada ixtiraama mataqaanaa goobaha lagu cibaadaysto meesha lagu tukado u fahan inay goob cibaado tahay magaca meesha ku qoran ka akhriso qolka salaada lagu dhahay ma lagu dhihin qolka cunnada ma lagu dhihin qolka muusiga ma lagu dhihin qolka buuqa iyo qaylada waa iskaga buuq iyo sheeko iyo sidoodaba waa iska mataqaanaa howlaheeni waa bogti meel markaa iskugu imaano iskugu tagno maanta oo dhan xiisad lagu jiray oo laga yaabo xoogaa inaad sheekeysano waa isfurfurno waa laga yaabaa laakiin muusiga inaad joojino waa wax mudan meeshaas testbin aa yaalo meel walba oo la nadiifiyo waxaa yaala testbin meel walbana shay mudan aa yaalo testbinkaas meesha waxaa loo dhigay wixii la isticmaalo in lagu rido qashinka in waxa aad duubtid meesha ku rid meesha lagu dhigay bay wuxuu u yaal mis weydiinaysid miya waa ku celinayaa goobta cibaado waxay mudan tahay ixtiraam meeshii lagu salaadayo nasiinada loo soo doonanayo waaye haddiiba jaanis laguu siiyey inaad wax ku cuni karto dabcan way ku fiican tahay oo waa meel dhisan anaga waddada meesha wax ku cuni lahayn waxaa noo wanaagsan meesha xiran inaan wax ku cunno waxay markaa cunto goobtii nadiifiyo geey meesha qashinka geey wixii aad isticmaasho meesha waa lagu tukadaa dadku way ku dhibsadaan ma wanaagsana qofka weyn in maalinta oo dhan in wax loo sheego waa inuu asiis canaanto mogti cid ku canaananaysa ma jirto qof weyn markaa tahay cid ku canaananaysa oo waxaan jooji hiblaahaysaan hayeen ku dhahaysa ma jirto waana ognahay hooyadaa ma kugu soo tarbiyeynin inaad meel inta khashamayso aad isdhex dhigto aad sidaad uga tagto waa ognahay anaga waa inay ku celisaa qof weynimadaadii ay ku celisaa aqoontaadii ay ku celisaa tarbiyadii loo soo siiyey aad meeshaasi aad isku daydaa inaad ka abuurto wax wanaagsan xadiidkii nabiga muxuu ahaa
من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده. يعني qofkii islaamka kusoo biiriyo wax wanaagsan sunno wanaagsan ajar buu leeyahay iyo ajarkii ajarkeeda waa leedahay adiga qofkii gadaashaa sameeyay ajarkiisa waa leedahay meeshaas wixii qofka qaldayo isku day inaad xanaanato aad u yeeraan ajar yar aad ka shaqaysato adigana ma ku darin marka intaas kulay waa wax iska mataqaana dheeraad ay ahayd muuqaalkeeni kale marka aan soo laabano qofka ka arday jaamacad hada bilaabi raba ahaan maxaa ku wanaagsan in lagu la taliyo ama aniga baa jeclaan lahay in lagu la taliyo walow aniga aan ka fiirsaday oo jaamacad aan hore ka bilaabin oo aan markii mataqaana alxamdulillah hoolayga isugu ka hagaageen oo aan shaqo bilaabay aan jaamacad galay waana saa sheegay inta semesterada hore iyo qofkan jaamacad bilaabin ayay qusaysaa semesterada hore wixii ka dambeeyo qofka semester 2 mar haduu ka gudbo dabcan waa qof laga filan karo inuu jahwareerkii ka baxo oo la qabsado waxbarashada iyo howlaha jaamacadda si u socdaan una mataqaana qalqalkii iyo waxyaabihii isku dhaxyaac jahwareerkii inuu ka bixi karo ayaa laga filan karaa marka qodobadan aan kuu sheegi doono waxaan rajaynaa ama aan ka filayaa ama aan kugula talinaa inaad nood garaysato ama si wanaagsan aad u dhuwato aad u fahamto muddadaana muuqaalada inaad dheereeyo dhibaal igu qabaa ani xitaa inaan soo gaabiya isku dayaa laakiin ma aqaani waa ku fogaadaa marka qodobka koowaad ay tahay ardayga jaamacadda inuu helo ay ku mudan tahay intuuna jaamacad bilaabin ka hor inuu mataqaanaa uu ogaado maxay tahay ama lagula taliyo waxaa lagula talinaa kow doorashada facultigaaga iyo jaamacadda ku habboon ee saxda inaad doorato facultigaaga inaan lagu doorin marka hore waa qodobka ugu muhiimsan qofka haddii facultigiisii loo dooro iyo hadduu isaga doorto totally way kala duwan tahay qofkan facultiga markuu doorto waxa uu dooranayo waxay tahay wax isaga hubbi u leh uu ogyahay inuu wadi karo wax isaga xiiseynayo taas waxay ka caawinaysaa qofkaas caqabad walba oo meeshaasi uga imaado inuu isku dayo wuxuu isaga horwareejin lahaa noocay doonta ahaato say doonta u adkaato wuxuu isku dayayaa ama mas-uuliyad iska saarayaa ciladaas ama caqabadaas ku timaada inuu iska horleexiyo laakiin markii lagu dooro facultiga xitaa waxyaabaha ugu yaryar markay ka hor yimaadaan waxaad isdhahay waxaan markii hore wax arabtay ma ahayn waa lagu dooray Soomaa saas darteed ma ku fiicnaanaysid waana dhab waligaa ma ku fiicnaanaysid adoo isjiidaayo adoo yani culays badan iyo dareemayo adoo shalayti ku jiro ayaad dhamaysanaysaa marka ardayga waxa u wanaagsan had iyo jeer facultigiisa inuu isaga doorto waxa uu isagu ku wanaagsan yahay inuu isaga doorto waxaa jiro dad mataqaanaa caruur ayagoo 16 jir oo kale meelahaas ku dhameeyaan high schoolka oo laga yaabo waalidkooda inay u dooraan waalidka xitaa waxa wanaagsan ubadkooda inay la taliyaan oo ay fahmaan wax uu xiiseynaa qofkan inuu barto muxuu yahay mataqaanaa hubbigiisu uu jecel yahay inuu barto oo la ogyahay inuu ku wanaagsanaan karo in laga la taliyo marka hore koow iyo jaamacad ku habboon inaad raadiso yani jaamacad ku habboon marka hore si fiican u baar cilmiga aad rabto inaad ku takhasusto sidoo kalena hubi in jaamacadda aad dooranayso ay bixiso barnaamijyo tayo leh oo ku saabsan cilmiga aad baranayso hubi jaamacaddaas in facultigaas ay bixiso yani xitaa fiiri qiimaha waxbarashada iyo qarashaadka kale si uu u waafaqsanaado miisaaniyadaada inaad waxaan yani wax aad isku keeni karto ay yihiin waxaa laga yaabaa jaamacad ay bixiso facultiga aad rabto laakiin qiimaheeda uu sareeyo isla facultigaas oo tayo leh oo wanaagsanna in jaamacad kale aad ka heli karto oona xoogaha qiimaheeda hooseeyo marka waa inaad isku fiirisaa yani meeshaan qarashaadka meeshaan lagu bixiyo oo jaamacadan ay ka rabto iyo adig misleedi yani waa inaad isku fiirisaa qofku waa inuu dantiisa garto uu is ogaado wax uu yahay way wanaagsan tahay Soomaa in waxaan marka aad isku fiiriso yani qarashaadka iyo wax aad ka rabto jaamacadan inaad isla heli karto si fiican inaad isugu dheelitirto waa qodobka koowaad qodobka labaad isku diyaarinta nolosha jaamacadda inaad isku diyaariso nolosha jaamacadda ee qorsheynta waxbarashada yani maamulidda waqtigaagii ay ku saabsan jaamacadda noloshan oo jaamacadda aad ku gali doonto inaad u diyaar garowdo samee jadwal kuu ogolaanaya inaad waqti fiican u heshid waqti fiican aad u hesho waxbarashadaadii salaadahaagii iyo cibaadaadka kale oona kuu fududaynayo inaad waqti siiso duruustaada inaad cilmi baaris samayso iyo yani waxyaabaha kale oo muhiimka ah sidoo kale ha iska ilaawin waqtiga aad u qoondaynayso nasashadaadii cunadaadii inaad ku fikirto mataqaana caafimaadkaagii hubi inaad si fiican u seexato si fiican inaad wax u cunto
gaar ahaan quraacdaada waa muhiim inaad quraacdaadii aad siday tahay aad ugu taxadartid iyo habeenkii inaad waqti fiican aad seexato si subaxdii aad mataqaanaa xilli hore u toosto salaadaadu aanay kaaga dayacmin oona aana ugu dhex caajisin xisooyinka aana u noqonin qof maskaxdiisu isku dhex yaacsan tahay oo dhafar ku jirto oona wax qabanayn subaxdii mararka qaar waxaa arkee waa tusaale ahaan 6dii oo kale 6dii iyo bar 7dii gaariga markii la raaco arday hurdayso gaariga ku dhex hurday waaga hadduu bariyo waa 7dii ama 6dii iyo bar meelahaas la marwaya wuuna dhafarsan yahay waxaa arkay qofkii oo gaariga ku dhex hurdoonayo taas waxay qofkii oo gaariga ku dhex hurdaay taas waxay ku tusay inuuna ka taxadarin hurdadiisa oo xalay oo dhan wax maalayacniya uu ku soo jeeday oo waqti iskaga lumiyay ayaa dhici karto oo macquul ah marka inay kugu dhicino qof fresh ah oo maalintiisu ay wanaagsan tahay oo nashaadkiisa uu qabo si aad u ahaatid waa inaad hurdo fiicanna heshaa quraacna aad ka taxadirtaa waxa aad ogahay inay muhiim tahay oo cunno ka mid ah quraaca jirto qofka yani aan quraacdiisu aanay wanaagsanayn xitaa damage oo wuxuu leeyahay oo maskaxda oo hadhow dambe yani uu aafadeeda uu haleeli karo ama cudurro maskaxda ku dhaco inay haleelaan laga yaabaa marka anaga ka Soomaali ahaan quraacdeeni sometimes way dayacan tahay ani kulay gadaal uga baraarugayo waxaa jirtay mar aan quraac saas focus ku saari jirin oo ay ka qayb qaadanaysay waxyaabo badan oo ah qayb ka ahayd in qof maskaxdiisa ay ungulafaata inaan noqdo alxamdulillah baa kasoo qabtay soo laaban muuqaalka marka inaad ka fikirto cunnadaas iyo in jimicsi yar aad samayso waa inay jadwalka kugu jiraan iskana ilow uu ka fogow caajisnimada iyo waxa la yiraahdo dib u dhigashada yani waxyaabaha muhiimka inaad dib u dhigto assignments inaad dib u dhigto inaad xilliga wax akhrin lahayd inaad dib u dhigto hawlihii lagu diray oo jaamacadda ku dirtay homework inaad dib u dhigato aslan boo noloshaada wax dib u dhigasho la dhaho banaanka iska gee qof nolosha jaamacadda intaad soo galin ka hor waa inaad ahaataa qof nafsad ahaan u tababaran oo naftiisu ay mataqaanaa training badan ay haysato oo wax badan ay mataqaanaa fahamsan wadi karo jaamacadda waan ku sheegayaa jaamacadda xilliga hore jahwareer badan ayaa kaaga horeeya jahwareerkaas qof u diyaarsan oo qaabili karo oo siday tahay uu gudbi karo ama uuna soo wajihi karin waa inaad ahaataa horta oo qof malayacni iyo caajis iyo dib u dhigasho iyo ka fog waa inaad ahaataa waqtigaaga oo si fiican loo maareeyo si ku habboon loo maamulo wuxuu kuu sahlayaa inaad gaarto guusha aad rabto aslanna qofku marba hadduu yaqaano siduu waqtigiisii u manage gareeyo oo waqtigiisii waxyaabaha ku kala habboon intuu u kala jadwalaystay sidooda uu ku kaxeeyo wayba adag tahay inuu caqabad la kulmo iyo inuu waxay dib dhigo iyo inuu ka daalo iyo inuu ku wareero wayba iska adag tahay waa qodobka labaad qodobka saddexaad raadi xiriiro wanaagsan raadi markii lagu dhaho maxaa hoos imaan kara horta waxaa hoos imaan kara inaad samaysato saaxiibo wanaagsan oo waxbarashadaada iyo horumarkaaga kugu dhiirigelin karo isku day inaad dhex gasho aad ka faa'iidaysato ururada ardayda iyo barnaamijyada bulsho ee jaamacadda lagu qabanayo yacni inaad wada shaqaysaan ardayda oo mataqaanaa aad noqotid qof mataqaanaa dhexgeli karo bulshada isdhexgalkaas marka wuxuu kaa caawinayaa wuxuu kuu fududaynayaa inaad xirfad ahaan u korto aslanna jaamacadda wax lagu barto sida dadku u maleeyaan maaha dadku waxay u maleeyaan qofku markuu jaamacad ka baxo inuu yahay qof yani wax walba la soo barayo uu haysto fursadii uu suuqa ku gali lahaa dabcan wuu haystaa fursad uu suuqa ku galo laakiin siday dadku u maleeyaan maaha qofka waxay u maleeyaan dadka in cilmi يعني 100% علم lagu soo barayo meeshaas jaamacadda sidaas maaha jaamacadda inta badan waxa aad ku baranaysid waxa ka ahba communication-ka dhexgalka bulshada wada shaqaynta bulshada qaabka danahaaga u sheegan lahayd qaabka dad u hor hadli lahayd qaab yani waxyaabahaas ayaa inta badan lagu bartaa adaan wax isbarayo waa self education caadi ah waa jaamacadda waxa ka jiro dhab ahaan marka bulshadaas inaad dhex gashido ardaydaas aad la shaqaysido aad mataqaanaa barnaamijyada noocaas aad ka qayb qaadatid qof shakhsiyad ahaan u dhisan ayaad mataqaanaa noqonaysa sidoo kalena inaad xiriir la yeelato macallimiinta xiriirka ardayda iyo macallimiinta kala dhaxeeyaba labada dhinacba inay wanaagsanaadaan yani inaad la xiriirtid macallimiinta haddii aad u baahato caawimaad iyo sidoo kale inay ku hagaan oo ay mataqaanaa ay ku tala siiyaan inaad tala ka heshid oo kale waa inaad la xiriiri kartaa oo macallimiinta dad yani labadiin aday macalinka xiriirka niga dhexeeyo mid wanaagsan oo mataqaanaa macquula inuu iska ahaado oo just aan isugu imaanin kalaaskaas oo sheekaba idin dhex marin oo kale inta badan saas kuma wanaagsanin anaga ahaan
يعني dhexgalka in ardayda ay waxa laga yaabaa wayna dhacdaabe aaba ogahay marqaati ka ahee dad 2 sano aad isku kalaas tihiin xitaa magaciisa iyo wajigiisa aan isku aadin karin wayna dhacdaay waa xaqiiqo jirta taasna inaan ka korno oo aan fahanno arjayna waxay tahay qodobka afraad xirfad hor le baro intaad yani inta yarta jaamacada ku dhex jirto aad ku guda jirtid ama intaadan bilaabin ka horba xirfad hor le waa barataa taasna maxaa hoos imaan kara marka inaad xirfad hor le barato maxaa hoos imaan kara xirfadaha qaar oo muhiimka sida qorista CV-yada wareysiyada shaqada iyo xiriirka dadweynaha inaad barato aad taqaano oo kale baro xirfadaha nolosha sida maareynta qarashaadkaaga yani waxa ku soo galaya wax ka baxay inaad maareyn taqaan iyo isku dheelitirka waxbarashada iyo hawlaha kale inaad isku dheelitiri karto iyo xirfadaha kale yani self presentation wax la yiraahdo iyo sidoo kale inaad raadsato tababaro iyo hawlo dheeraad ah si aad u kasbato khibrad shaqo oo kugu habboon jaamacad wax lagu barayo xirfadaha u badan qofku wuxuu baranaa xirfad yani in xirfadahaagaas qaab aad uga shaqayn kartid inaad sii raadisid inaad meelaha galgashid in xirfadahaagii mid markaad baratidba mid kale aad ku biirisid aad iska noqotid qof dhowr xirfadooda kala duwan ama waxaas uu baranayaba xirfadahooda kala duwan yaqaano oo meeshii ay fursad uga soo baxdo ka faa'iideysan karo gali karo inaad ahaato iyo tan shanaad ay noogu dambayso ha laga helo ixtiraam ha laga helo ixtiraamku islaamku muhiimad weyn buu siiyaa ixtiraamka يعني inaad ixtiraamto macallimiinta inaad ixtiraamto ardayda inaad ixtiraamto yani sida haday aan sheegnay waaye goobaha la isugu yimaado lagu cibaadeysto oo kale xitaa goobaha cunnada marka isugu timaadeen anytime inaad ixtiraam muujiso horta qof muxtaram ah oo wax ixtiraamo dadka ixtiraamo inaad ahaato si adina waa mataqaanaa marka lagu ixtiraamo waa ceeb iyo wax laga yaqiiqsiyoodo ardaygu inuu ixtiraami waayo macallinkiisa fahmaysa waxa laga yaabaa sometimes ayagoo macallinka uu cashar sharaxayo oo inta ku jiro uu energy-giisa inta ugu badan baxayo dad qaar inay iska hadlaan hadalkoodii xitaa inuu iyaga leh ku ekaado maahee ardadu kulu dhibaa dad waxaa arkay safka gadaale fadhiyo oo qayladoodii buuqooga aanad ka maqli karinba codka macallinka dee waxaasna waa ceebo dad waaweyn oo jaamacad dhigto in maanta oo dhan la yidhaha war aamusa teleefonkan iga dambi isaan yeel hey waxaas waa wax laga yaqiiqsiyoodo oo kana mid ah ilmahan marka wax duubaayo leh baqeylada uga baxdaa arunow sababto khayr allah idin siiyo yani waxa keenayo inay kala duwanaadaan yani dadka jaamacadda dhigtaa dadka jaamacadaha dhigtaa siday dadku u arkaan iyo sida iyaga yihiin inay kala duwanaadaanba taasaaba kooka ah yani waxyaabihii qodobadii aad soo sheegay hadaayadii iyo klaaska la iskaga dhex buuqo telefoon la iska isticmaalo qofka klaaska game ku dhex ciyaaro inaad iska ilaaliso waxyaabahaas si gaar ah lagu arki doonaa mar walba yani si dadka kale u arko macallinka qaab ka duwan uu adiga ku arki doonaa yani midaasna waa inaad ka taxdirtid dabcan talooyin intaas ka badan oo la isa siin karo ayaa jiro laakiin bal inaan soo koobo intaan soo koobay marka waxaa jiro waxyaabo la iska celiyo dabcan inta aan hadda yani aan kugula taliyay cagsigooga ah laakiin qaar baan si yar u iftiiminaya waxaana ka mid ah kow oo lagaaga digayo inaad samaysato saaxiibada qaar ee xun ama yani inaad ku xirmato dadka qaar ka fogow dadka kugu dhiirigelin kara ama yani aad uga dayan karto caajisnimo hawlo aan faa'iido lahayn ama akhlaaq xumo sida la ogyahay inta badan qofka aad la socoto way ku saamaysaa dabeecadiisa hadduu yahay qof mataqaana wanaagsan way ku saameynaysaa wanaagaas hadduu yahay qof xun xumaantaasi waxay u badan tahay maalin inay ku saameyso haday hore kaa saameynin maalin inay ku saameyso marka ardada dadka qaar yani inaad ka dhigato saaxiib iyo dad ku dhow waa laga wanaagsan haddii kale sida iyaga loo arkayo adigana lagu arkaya qofku maxaa la yidhi waxaa tahay wax uu saaxiibka yahay dadka qaar yani ma wanaagsano qaab hadalkooda yani aad iyo aad u qalafsan tahay ixtiraam dariya ka muuqan karto way jirtaa mataqaana waxyaabo mararka qaar liskaga kaftana way jirtaa laakiin kaftanka xitaa sometimes waxaa dhici karto wax adigaas kaftan u arkaysid inay qof dhaawacaano ama uu si kale uu u dareemo u qaado adigiina ay kaftan ka aheedo iska dhahdeen taasna casharan ka bartay waxaa wanaagsan qofka aad la kaftamaysa xitaa qof aad taqaanid ama lala kaftami karaa ogtahay inuu ahaado inaad kala barato dadka
inaad dadka kala barato. ixtiraamka ayayba ka mid tahaba taas xitaa inaad dadka kala fahmi karto oo aad samaysan karto mataqaanaa qof ku hagi karo aad wax isla muraajacaysan kartaan, isfahmi kartaan, iscanaanan kartaan, mataqaanaa isceshan kartaan inaad hesho meeshii aad ku xirmi lahayd qof kugu dhiirigelinaya inaad hawlahaagii dib u dhigato, kugu dhiirinaya inaad wixii laisku dirayba aad ka boodaan, ku dhahay haddii rabto yaa ku amraayo waxaan adig kaskaaga waaye ku dhihi karo inaadan ku xirmin. waa lagaala talinaya dabeecadahooda, dadka dabeecadooda way ku saamaysaa. raadso kalaas walba waxaa ku dhex jiro oo laga heli karaa qof adig kaasii faham fiican. bani aadamka isku fahan maaha moogtee, qof first wax fahmaa, second yacni waa isku xigxigaan. sida nin boqor ahaa exactly magaciisa wuxuu ahaa ma xasuusti iyo magaaladu boqorka ka ahaa, laakiin waxaa jiray nin carbeed oo boqor ah oo mataqaana carabtan inta badan gabyada way ka dambeysay oo ilaa hadda xitaa carabtu maybe inay dadku ugu badan oo yacni gabya inay ka mid yihiin umalayaa magaciisa, laakiin ma xasuusto boqorkaas. dadka oo gabyahayada magaalada way usoo tartami jireen, yacni qof walba oo boqora gabyayadan way imaan jireen oo gabay u tirin jireen, gabay uu ka gadmo lacag buu siin jiray. saas ay nin boqora waxaa jiray marka oo aad faahin u ahaa oo ilaahay fahansiiyo maskaxdiisa zaa'id u furneed aa jiro. qof walba wuu usoo tartamaayo wuxuu is dhahaa hebel boqor hebel hadduuba gabaygaan midkaan maanta soo diyaarin doono uu hore u haayay waa la arkay, wuu tagaa. gabayaagu markuu tago oo dhahaa gabay maa wadahay soo akhri aa ku maqlay soo tiri. gabayaagu markuu gabaygu dhameeyaba boqorku already wuu haayaa gabay kor u ka haayo, wuxuu dhahayaa oo kaasle maa sheegaysa kaas hore u aqaanay ani waa ku akhrina dhegeyso. markuu tiriyo gabayga uu boqorku u dhameeyo, khaadinkiisa ama addoonkiisa oo isaga u shaqeeyo isagana toobta labaad uu wax fahmaa. halka boqorka biyaajada koowaad wax ku fahmo, ninkan biyaajada labaad uu fahmaa. anile maaha markuu dhameeyo dhahaa anile maaha xitaa waa yaqaanaa khaadinkaygan ama addoonkaygan adeegahaygan wuu yaqaanaa, wuu ku akrinaa dhegeyso. asna wuu akhriyaa baa la yiri, wuu dhameeyaa. markuu dhameeyo addoontiisa ama iyadana adeegtiisa kale, horta addoomuhu adeegayaasha may kala doonaayeen ma hubi, laakiin addoomo unbay ahaayeen. addoon yacni addoomad addoon layla kala dhahaya adi waxay ahaataba addoonkan oo ama khaadinkan ninkaayi markuu marka labaadba uu haayo addoonka markuu akhriyo tii yacni dumarka ahaydoo iyadana ay ahayd magacii maxaa adeegto iska dhehban waa wareeray bay adeegtadan iyadana toogta saddexaad ay ba fahamtaa. marka saddexaad way haysaa, markaasuu dhahaa inaa labadeen la naqaana ma u malaysaa maya xitaa way taqaanaa heblaayo ama adeegtadaydan xitaa way taqaanaa, iyadana way akhrisaa. sidii uu ku dhahaa wax cusub lamaadin maalina iska bax. markii dambe waxaa ka badiyaa la yiri nin oo isaga xitaa magaciisa ma xasuustay, waxa aa sheegayo anoo kalaas dhex fadhiyo hadda ka hor 18kii ma aheeda la ii sheegay magacyadooda ma xasuusta. wax gabay ba aan u ekayn oo isku aadismayn. gabay waxaa la yaqaanaa wax tiraab oo isku aadan oo isku mataqaanaa ay hagaagsan inay tahay, mataqaanaa wax isku dhex yaacsan uu keenay saas ugu badiyay lacag uu qaatay in la dhahayo ayaan u malaynaya. marka dadka saasay kala yihiin. arday waxaa jiro adikaasii faham fiican jiri karo, isku day ardaydaas oo kale inaad wax ka faa'iidi karto, inaad mataqaanaa communication aad samayn kartaan oona aad wax isugu celin kartaan oo qofba markuu wax fahmo kan kale inuu wixii ugu celin karo. isku day intii aad saaxiibada qaar aad yeelan lahayd. waaba ku dheeraaday tane tan labaad waxaa kaaga digayaa mar kale dib u dhigashada hawlaha ama waxbarashada. ha ku dayacin fursadaha waxbarasho adigoo ku mashquulaya madadaalo badan. taas cagsigeeda ku dadaal inaad waqtigaaga uga faa'iidaysato waxbarasho si aad ula qabsato nolosha jaamacadda. waa sheegay oo ku celinayay nolosha jaamacadda waxay u baahan tahay la qabsi oo muddada hore qofka uu ku jahwareeri doonaayo wuxuu ku fakari doonaa mar iyo labo inuu jaamacadda joojiyo. laakiin ha joojinino, waa muddo un yar oo kooban waad la qabsan doontaa. markii aad hagaajisada noloshaada aad mataqaanaa qof waxbarashada usoo jeedo oo waqtigiisa u maareeyo yaqaano aad noqotana dabcan meel caadi aad ugu socotid oo aan wax wareera kuu keenin oo natiijooyinkaaga ay wanaagsanaadaan ay kuu noqon doontaa. tan saddexaad iska ilaali nasiinyada ama nasashada xad dhaafka iyo yacni howlaha madadaalada.
كفوقو وقت بدن oo lagu lumiyo mataqaana daawashada aflaamta isticmaalka xad dhaafka ee baraha bulshada ciyaaraha aan yani dabcan wax faa'iido lahayn oo iska maala yacniga waxyaabahaas oo kale inaad waqtigaaga ku lumiso in intaad part time aad jaamacad ka dhigato aad waqtiyada kale dhabar aad isaga jiifto oo telefonkaan iska haysato waxba kuu soo kordhin mayso iyo in mataqaana cashar aad inta soo qaadato aad isku laabto aanad marba akhrin oo iska jiifto filim hebel iska daawato filim hebel aad iska daawato meel hebel aad iska aado iska soo laabato iska cunto waxaas wax ma kuu soo kordhinayso dad waxaa jiro kalaas markii la joogo xitaa aanan casharadu la soconin oo iska fadhiyo oo focus macalinku siinin oo mar banaanka iska aado iska laabto waqti cunaa la gaaraya iska soo cunto iska soo laabo meeshaan marba hadaa ku bixisay lacagtaadii aad waqtina ku bixinaysid wax kuu qalmo inaad qaadataa lacagtaadii wax kuu qalmo inaad ku bedelataa waqtigaagiina wax u qalmo waqtigaagii oo waxa hantidaada ugu qaalisani wax kuu qalmo inaad ku bedelato haddii kale aanad isku soo bixin baa tirspor una kaa soo bixin ay meeshan gaajo kugu dilin ay mataqaana aanad fadhi meeshan kugu dilin dhowr saacadooda waxaasna waa inaad bixinin haddii kale wax ku yani u qalmo aad ku bedelan kartid oo beri ka maalin ku anfici karo waa inaad meesha kala tagtaa mise maaha dabcan way tahay iyo qodobkeeni ugu dambeeya oo aan kaala talinayo ka baaqashada su'aal weydiinta waan kaaga digayaa qodobkaas waan kaaga digayaa inaadan ka baaqan inaad su'aalo weydiiso haddii aadan fahmin casharka ama waxa macalinka uu kuu sheegay waxay mudan tahay inaad su'aal weydiiso ha ka labalaynin inaad su'aalo weydiiso macallimiinta ama ardayda wixii aad dad waxaa jiro mataqaana xilliga su'aalaha oo kale iska dhunta su'aasha sideedaba wax caqabada oo dhibaato saas ama keenayso oo laba mid waayo waxaad baratay iyo waxaadan baran baad ku kala fahmaysaa macalinkaana wixii aad fahamtay iyo wixii aadan fahmin wuu kala fahmaya waaba intaas wixii aadan fahmin waa inaad su'aal yani aad macalinka weydiiso aanad ka gamban su'aalaha macalinka uu ku weydiin doono labadaas bay u kala baxaysaa cidku mataqaana oo ulkuu soo qaadanayso kugu canaananaysa ma jirto ma fahamtay bini aadamkan wuxuu uu ku dadaalo ayuu mataqaana mirahoodu helaa adigoon waxbarasho ku dadaalin cashar ku dadaalin si fiican u diyaar garoobin hadhow ha suganin inaad mataqaana meeshaasi dhibco fiican marks fiican aad kala tagto qof walba wuxuu shaqaysto meeshaas ku helayaa taasna tusaalaha kuu noqoto oo taada aakhiro xitaa teena aakhiro waa sidaas sida meeshaasi goobtaas dhibcaha markii la fiirsanayo loogu kala baxo ayaa maalinta qiyaamana loo kala baxaa qof walba wuxuu intuu ku shaqaysto qofku wuxuu shaqaysto adduunna ku leeyahay aakhirana ku leeyahay كل أنت سويت الكلمات إن إذا لو ذا وأنا وجد موقع كي مركلو ديراضي لكن واقع عذر ظهرنيا إن أسوق بيار ربونيا لكن هذا الكي إسكابضن أم وحي ففهمت وضو أن كل ديرانا يا آدي أذن كذا رجلنا ديرانت يعني موقع كل ديراضي وبهدي هذا كان سوق قارتي وكم حصلت هيدا وش الموقع كان داوتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.